وبرو بل واحد نود غرابة ما أنت دكتها وتاجني وعربنا هنا لبك كلمة دوسيو نبضان إبراهيم عمر نبضان معلن إبراهيم فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore ka cudur daarahayaa hadda waxa jooga dad hadii la yiraahdo hadda dhalin iga weyn dalashana iga weyn marka birkoorna hormarsan jiray marka waa ka cudur daarahayaa inay hadda maanta soo hormarsadaan laakiin haday soo idmadeen waxba kuma jiraan warmadina waa laga waramay waxaan soo dhaweeynaa wabar Soomaal raagi wabar ilfaaf over Soomaaliyeed dad waxa ay hadda inta fadhina Iiriya jira wabar ayaan dhaweynta duuba kala sheegaysay inay hay tahay aniguna wabarka waa qabnaa marka taas waxa looga fiirbaa kara Soomaali oo duuba badan tahay garada ku jira boqor ay leedahay malaaq ay leedahay imaam ay leedahay garaad waasay leedahay wabar ay leedahay nin walba marka guushigu soo dhaweynaayo Soomaali joogta saa ku mitira marka saasa looga daawooba nin duubka Soomaaliyeed oo kamid yahay duub walbana guushigu soo dhaweeyay Soomaali ku mitira duubka kala dulmiha ma jiro wixii qaar ma jiro marka wabarku duubka Soomaaliyeed kamid yahay waana wabar saxoo la duubay dadka duubabka waxa la yiri caana lagu shubaa tufna waa la siiyaa wabarka caana lagu shubay waa lagu tufay tufa la cabsiyaha la yiri kun qofood amba ka badan tuftoori uu qabaa wixii malab iyo mariid ku jiro qabaa marka wax la riixi karo ma marka lama oo gaabsan karo dadkaana waa dadkiis inuu u yeelo leeyahay inuu qudbay u leeyahay waa qurbay joogan inuu baraarujiyo oo wadankii waa nooga dambeeyay ka jiro nooga waramo leeyahay meesha uu joogo dadka joogo metela intuu ku metela doob kasto Soomaali ahaana ka siman ee asiga kaliis ma marka waa soo dhaweeynaa waa in dhalinyaro dhaqam ah siyaasi ah dadku inay siyaasad iyo dhaqan isku darsan oo badna wabarku waana siyaasi waana dhaqam waana duub inta soo ku darsaday marka waxaan ka rajaynaa wax badan oo hor u kaca oo amba aqli celina oo qowlan iyo ficlan baa waana soo dhaweeynaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.